maxaa keenay fikradda ah in Soomaali ay yeelato calan waqtigeeda ahayd waqtiga fikraddu waxay ahayd markii Soomaali wasaayada loo dhiibay United Nations talyaanigiina la yiri 10 sano hayo arrintii waxaa ku jiray oo kamid ahaa in calankana lagu daro oo Soomaali calan baadisoceeda ay leedahay sumad looga aqoonsado dawaa'ilka kale dabadeed iyo kontonkiiba United Nations waxay yiraahdeen calankii waa in dhowr jeer ay talyaaniga xoogaa ka dabacsan markii ay keeneen baarlamaankii horeeyay kunsiga territorial la oran jiray sida tashriicu ahaa yaa la keenay in calankii Soomaalida laga hadlo oo Soomaalida calan ay leedahay markay isku raacdo kunsiga territorial markaas loo diro United Nations ratifikada inay loo ictiraafo calan wadan ahaan sovereignty dabadeed meeshii waxaa dhacay dadkii leega maahee waa dad talyaaniga iska wataa sideedaba horta taas waa aan ku cadaynayaa annagu haddaanu leeganahay waxaa noo soo gashay kontata jentra qolo walba oo xisbi ah saatii markaa joogtay hadday yaraato ama 7 ama 8 ahayd kuwii waaweynaa oo la ictiraafay inay keenaan qolo walba 3 nin ama 4 nin oo u joogto uga hadasha baarlamaankan Conciliar Territorial Council ka loo jeedo leegadii marka waa keensadeen iyo koodi anigu waxaan ahaa markaas credit union organization personal staff baan u ahaa madaxana marka wixii shaqaalaha ahaa oo dhan oo Soomaali ahaa in kasta ahaadeen markay isu tageen nin la soo baxay la yiri aniga ila soo baxay marka anigu inta baan hawaalka ma aan ahayn dadka la soo socdo leegado 6 nin bay keenay 3 baa laga baxaya Afrikaanku 6 nin bay keenay 3 baa laga baxaya hada wixii walba intuu keena bar yaa la qaadanaya iyagu dawladda markaas joogto talyaaniga ونادونا وعدي كيس ولا جونا صدق دي واحد شو جميل بس مركز أنا بساسا قلقل ماشي هدي لي عالم كهلا الله ما أنت عالم كهلا اللي هي وأنتي تعرف علي عالم كنا وعنات كنتها حسب والبا فكرة دي سيد عيلتها ولو الحزب يقول وياي كواحد حزب سياسي وحيصوب إنك تكوري يبوط النوع أيها طبعا SYL كاري وكراول كي يحدك تقول حضرنا يمشي كنتي أنا هو محمد عوال عهان وحان سمايستي علم قونئة عوال عهان كان حكرا شركة مركا ما يمكن قونئين مساعد كلا يجرتوا مركا كجرت الشركة ay dood ka dhacday oo marka ay ka baxday shirka amaba ay marka hore ku jireen may shirkaba waxa la yiri waa in calanka la soo hindisaa wala dhowr waqti aan nasiiyay waqtigaas kadib qolo walbayba waxa la idin kala United Nations baa soo dirtay adeeg waxay yiraahdeen waa kan rag u joogay oo Soomaaliya waa in calankii ay isku raacaan oo la garto ay gartaan saasana loo sheegay annagii baa markan la yiri keen calan أنا عالم كي أنا وعن كيني وأنا وعن إلى الحين تاسو عن عدينا أيام حين وشكل وكبر أما الدنيا هندي سي أما الرجال لما شاوروا دي أما أنا وحي قصم بنا وحنا المستجر معنا وحنا طبعا عند الرئيس كل ما شكله إنسان والله ده حالين وأنا عندي بدي أرجع من عشان waxaan codsanayaa in la ii gariyo waa proposal anigu aan leeyahay Maxamed Cawaala waxaan lagu jira meeshaan arkayaa councilka
toban nin oo aan soomaali ah, 4 waa talyaani, 4 waa carab, 2 waa hindi bakistan. oo marka iyagu maxay ka qabanayaan meesha? waxay ka qabanayaan waa economic operators, dalkay degan yihiin, xoolaha iyagaa haysta, talyaanigoodii baa u yimid, haddii waaba raggal rabaaba inuu meeshoo dhanba ka muuqdaan oo qolatan xataa brotalianka nimanka lacagta wax ka dhiibaya ka mid wey. maxay xisbi baa jira dab wato halkan SYL. marka ajulay waxaa la yidhi meeshii maadaama hadda ay tahay loo dhiibay un administratione fiduciario waa dadka dalka jooga. talyaaniga marka waxay ku dareen 10 ajnabiga operator ama beerihii, dukaamadii, maqaayadihii, industriyariyaha iyaga ah. Soomaali waxay haysataa ragga qowada iska raba inay wadanka dowlad ka dhigaan. hase ahaatee nimankan waxay kama ay hadli karaan calan wixii kale oo la keeno laabaas maadaama ay u dhalan dalka. see ninka may adigu igalama hadli karin baan waxay igala hadli karaa councilka waa ay joogaan Soomaalidii weeye. waxaan rabaa vote in la igeliyo vote baa la igeliyo majority waan ka aad iyo aad baa Soomaalida ugu farxad hadalka intii aan Soomaali ahayn meesha ka baxday Soomaali qaata maca chairmankii loo joogay waxaan idhi nin Soomaali aan ka dhiganayn ninkii ragga u fulweyna una mudnaa meesha joogay yani aan ku dara proposalkayga isagoo chairman xamaam. taas faa'iido weyn oo dadkii aad u saamaysay qoomi ahaan kii laga hadlay oo geedi lagu raabo qolo walbateedu la soo baxday iskuna daalay baan markii anigu waxaan idhi chairmanka ahaa Mr. Chairman anigu calan baan wadaa. calankan hadda aan wadana ma aha calan xisbi iyo qolo iyo nin gooniye iyo midna waa calan Soomaaliya. waxaan ka codsanayaa odayaasha sheegan hadalkaa dhammeeyo oo idin tusahaya inaan hadal layga dhabqin oo la ii daaya dhabna la ii dhegaystaa. micnaha markaad garataan saa doontaan laakiin marka hore ii dhegaysta. qolo meeshii joogtaa yidhi soo bixi naga daaya hadalkaaga oo dibadda u soo saar. halkaan iigu jiray shaarka hoostiisa ah shaarkaa ku aan qabay dibaddaan u soo saaray. wuxuu ahaa horta ballac iyo dhir way isla ekaa qadraaxta la yidhahdo oo isla ekaana 40 centimeter 40 centimeter oo qarqad cad buluug ah dhexdana qarqad buluug kulligeeda laakiin dhexda xidig cad oo shingeys ah ay ku samaysan tahay aan ku soo qarqaan. nolol jeeday markaan u micnay raggii meesha joogayna badan ahaantii ay la raaceen oo iga raali noqdeen iyo waan sacbiyeen. markaan uga sheekeeyey innagu haddaynu Soomaalinaha guud ahaan isku mid baynuna haata 5 gabadh la qaybiyey. annagu ma aynan qaybin laakiin ay qaybsadeen nimanka isticmaalka yaa jiro mid waxaa France mid xaggaan iyo Brit Somaliland mid wuxuu jira xaggan iyo Ogaadeen mid xagga shan koonfurkaan iyo NFD iyo tan oo Talyaaniga xukumay. innagu waynu sugna haddaynu leeganahay haddaynu Soomaali nahay waxaynu nahay 5taas gobol. 5 goboloo haddii ogay dadka 4 adnimadii ka ay tahay 5taan xidibtu waa Soomaali guud ahaan 5taan geesna waa 5 gobol oo ay Soomaalidu tahay. caddaanku waa nabadgelyo wixii cad khayr baa loo nigeystaa. gabayo iyo mahmahaya ku jira caddaanku waa nabad wadan nabadeed inuu ahaadi barwa. buluugaan ay ku dhici jirto haddii waa dadkiino 2,000 oo waxaynu leenahay badalina ku wareegsan iyo buuraba intoo Soomaali waxaa la yidhaahdaa weli waa cagaaranta saaran maahni disaad mali. inagoo dhan macnaheedii wuxuu ku leeyahay 5taas gees iyo xidigtaas cad buluuga ku dhici jirto. nina male xisbi ma laha aniga igu khaasa anagii soconaysay. ninkii ugu daraa leegada ama kontray ahaan jirayba wuxuu isku dara sacab iyo cawaara nolow. maxamed cusmaan baa loo maxamed cusmaan
edmond baa loo yidhi lama kala harin wuxuu yar maahe intii kale meeshaasaa la isku raacay calankaanu inuu calanka Soomaaliya